Bismillahi Raxmaani Raxiim akhyaarta waa mar kale idinku soo noqday waxaan rabaa inaan idin tuso lacala haddii uu ku diyaarsan yahay daatadaada SPSS sidee baa SPSS kaas daatadaada ku diyaarsan ugu samaysan kartaa mean standard deviation chi-square t-test p-value wixii markaa aad leedahay alla ilaahay waa aad ku anfacaya si lagu cabiri karo loona fahmi karo daatadaada marka waxaan isticmaali doonaa hadda in aan tago si aan kuu tuso waxaan tegayaa analyze waxaan ku dhufanayaa descriptive statistics waxaan dooranayaa frequency si automatic ah inta table aan rabo inaan israacsiiyo aan israacin doonaa tusaale hadda waxaa nagu filan waxaan israacin karnaa inta demographic ah marka israaciyo automatic waxay gelinayaa qaybtaas xagga ah ama wax kale option kala dooran haddii aan is iraahdo option oo furo kara optionkan caadiga ah waxaan iska reebi karaa maximum iyo minimum kastoo dadka qaarkood ay dhahaan micnaha ku fadhiya naftikooda waxaa la fahmayaa maadaama meanka uu ahaa bar dhexe maximum number iyo minimum numberka wuxuu ku fahmayaa inta numberka ugu sarreeya iyo numberka ugu hooseysa waxaan ku darsan karaa variance waxaan ku darsan karaa standard error laakiin wixii marka aan rabo inaan raadinayay waan isticmaali karaa automatic waxaan ku dhufanaa okay wuxuu ii diraa markaa output view automatic hadda ku muuqato afartii su'aal israaciye waa tana total numberka ay kala samaysnaayeen waa kana minimum numberka waa kana maximum numberka la doorto waa kana meankiisa waa kana standard deviation waa kana kan unbaa soo qaadaysa hadhow waxaa keensanaysaa wordkaagii ama mid cusub oo aad afuratay wuxuu doonaa ha ahaadee waxaa ku samaynaysaa soo dhiganaysaa bis waa dhamaatay kan marka wuxuu u baahan yahay bis inaan qurxis ma ahane wax kale si kii hore aan samaynayna excel markaan joogno excelka oo kale ma aha kan waa dhammaystiran yahay sidaas ayaan ku dhamaaday mashruuca koowaad kan labaad ee aan markaa haysato SPSS-ka aad isticmaali karto waxaa ka mid ah inaad tagto analyze inaad tagto descriptive inaad tagto cross tabulation oo isbarbardhigaya laba su'aal cross tabulation markaas wuxuu ku qasban yahay comparison of two questions ama one question la compare garayso other questions kale laba compare garayso hadda waxaan soo qaadaynaa questionka age ka kale waxaan la compare garaynaa questionka responding ka kale kadib waxaan tagayaa statistics-ka waxaan dooranayaa chi-square haddii aan rabin waxaan dooranayaa correlation labadoodna doorsan u aragtaan kadib intaan kale u baahnay intaan kale waxaa u baahan qofkii loo diray ama laga rabay in uu ku isticmaalo ayaa raadin karaa si automatic ah waxaan dooranaa marka okay wuxuu ii xisaabaa intiiba si wuxuu ii xisaabayaa fudud oo aan lagu wareeri karin waa kana sida hadda idin muuqata wuxuu keenay cross case processing summary age respondent and professional respondent oo cross tabulation la soo aadiyey kama tabelka caadiga ah oo ku salaysan frequency number caadi ah oo aad percentage ka maqan tahay iyo chi-square testiska oo noocan ah wuxuu soo saaray version chi-square likelihood ratio linear by linear association intaba kuu soo calaamadeeyey sidoo kale wuxuu hoos keenay symmetric measurement-ga oo correlation ah soo markaas si fudud kugu tusaya standardka errorka ah iyo xiriirka ay leeyihiin si ay u leeyihiin soo si fudud kugu cadeynayo marka hadda u baahato inaad qaato waxaad ku dhufanaysaa copy si hadda aan sheegaynay automatic waxaa aadaynaa wordkii markaas aan rabay inaan dhigto kadib waxaan ku sameynayaa paste automatic wuxuu isoo dhigaa markaa tablekii oo dhammaystiran xitaa leh sharaxaad yar oo ku saabsan hadduu zero cell percentage yahay expect count less than 5 waa inay ahaataa wadka yar 5 minimum expect hadduu yahay waa 45.14 meesha ugu badan waa 5.14 automatic wuxuu kuu sheegaa marka measurement-ga waa ku cad yahay sidoo kale waxaa isticmaali kartaa waa kii saddexaad waxaa isticmaali kartaa inaan ku dhufano analyze waxaa ku dhufanaynaa compare mean waxaan tasgaraynaa t-test one sample t-test waxay dhahaan laba su'aal saddex su'aal wixii aad gelin kartaan gelinaynaa optionkan kalena waxaan ka dhiganaynaa maadaama confidence interval uu leeyahay t-testiga waxaan gelinaynaa 95% kadib waxaan sameynaa okay automatic wuxuu ii soo saaraa table dhammaystiran oo ka samaysan mid statistical mean ah iyo mid t-test ah hadda waa kana one sample test wuxuu soo qaatay total numberkooda meankooda standard deviationka iyo standard errorka isla sambalkii oo leh difference mean leh lower iyo upper standardka oo ku salaysan weliba 95 confidence ku salaysan aad waxaa loo isticmaalaa kan
kana la qaataa kaas inta badan maadaama uu la mid yahay min haddaad min u baahato dadka minka hadda raadinaya oo kale kan waa qaadan karaan kadib waxaan aadaynaa markaa sambarka meeshaan dhiganaynay automatic markaa meesha timaado waxaa samaynaysaa oo keliya besti kadib waa quruxsanaysaa tebalkaaga automatic marka saddexdaas nooc waa la maraa kii marka adiga kuu fudud aa isticmaali kartaa wax shidana ma lahan asxaabay markaan sugna insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.